kulanti wacan saaxiibayaal meel baa joogtaan magacayga waa qaliiji weli waxaa ugu jirnaa casharadeenii 11 in Deutschland hore waxaa u soo qaadanay ilaa iyo 180 maanta waxaa ka bilaabaynaa 180 ilaa iyo 200 anagoo hadafkeen ahna in aan 300 su'aalood meeshaan aan ku wada sharaxno su'aasha 181 waxay leedahay saaxiibayaal was wollte Willy Brandt mit seinem Kniefall 1970 im ehemaligen jüdischen Ghetto in Warschau ausdrücken. muxuu rabo ku leeyahay macnaha ninkan la yiraahdo Willy Brandt muxuu meeshan qabriga meesha yuhuudda ah muxuu ku soo bandhigayay buu ku leeyahay macnaha ay ahaa Warschau Park muxuu ahaa wuxuu ku soo bandhigayay ku leeyahay macnaha ninkan la yiraahdo Willy Brandt sababtoo dhulka u fadhiistay jilbaha dhulka u dhigay 1970kii waxa uu Austria ku sameynaya ama soo bandhigay maxay ahayd ku leeyahay waagaas qaybt A wuxuu ku leeyahay hat sich den ehemaligen Alliierten unterworfen Alliierten kan hore u soo sheegnay qaybta kooriisa ku soo sharaxnay waxay ahaayeen kuwii besetzungszoonaha qaybaha Jarmalka kala joogi jiray kala ahaayeen sida Mareykanka, Britishka, Faransiiska iyo sidoo kale Soviet Unionka kuwaas lahaa macna Alliiertenka ahaayeen oo isku urur bay ahaayeen marka kuwaas ayuu ka guuleystay buu ku leeyahay macnaha qaybta labaad ee Bad Polen und die polnische Juden vergeben wuxuu ka baryayo ku leeyahay Betenberg yimaado macnaha wuxuu ka codsanaya ama ka baryayo macnaha Polen wadanka Polen iyo Yuhuudda ku nool Polenba cafis ayuu ka dalbanaya macnaha uu ku leeyahay zeigt seine Demut vor dem Warschau Park yani wuxuu qoladan Warschau Park wuxuu hoos ayuu iskugu dhigayo ku leeyahay macnaha oo daciifnimadiisa wixii camal u tusnay iyo sprach ein Gebet am Grab des unbekannten Soldaten wuxuu ka duco ayuu akhrinayo ku leeyahay macnaha wuxuu akhrinayo qabri mid kamid ah askarta aan la garanaynin aan la aqoonin ayuu qabrigiisa ayuu ku duceynayo ku leeyahay macnaha marka taaba sax marka su'aashna la weydiiyay saaxiibayaal oo ahayd ninkan la yiraahdo Willy Brandt muxuu rabay ayuu ku leeyahay macnaha sababta dhulka jilbaha u dhigtay 1970kii qabuurtii oo yuhuudi hore wuxuu markaas ku soo bandhigay maxay ahaayeen ku leeyahay marka jawaabtu waxay tahay saaxiibayaal Bad Polen und die polnische Juden im Vergebung yani yuhuudda iyo dadka polnishka yuhuudda ku nool yuhuudda wuxuu cafis weydiisanaya yani macnaha maadaama xaquuqdii markaas oo geysteen qolooyinkii Naziska National Socialistinka xasuuq u geysteen yuhuudda ayuu macnaha cafis ka weydiisanayo asoo wadanka Jarmalka matalay su'aasha 182 wuxuu ku leeyahay welche Parteien wurden 1946 zwangsweise zu SED vereint der Einheitspartei der späteren DDR يعني كنت xiligan xisbiyadii ayaan ku leeyahay xisbiyadii oo sida qasabka ahaa ugu midoobay SED qol xisbi liiraado ku midoobeen xisbiyadii ayaan ayuu ku leeyahay xiliga oo DDR A KPD iyo SPD ma ahaayeen B SPD iyo CDU ma ahaayeen C CDU iyo FDP iyo D KPD und CSU marka xisbiyada 1946 ku midoobay SED oo si qasab ugu midoobay ay ahaayeen ku leeyahay xiliga DDA marka waxa midoobay waxay ahaayeen KPD xisbiga yiraahdo iyo SPD oo mid kan jira ah ayaa ku midoobeen xiligan DDA ah su'aasha 163 wuxuu ku leeyahay wann war in der Bundesrepublik Deutschland das Wirtschaftswunder gormeehed ayuu ku leeyahay macnaha in Jarmalka uu ka dhaco Wirtschaftswunder la yaab dhanka dhaqaalaha ah uu ka dhaco gormeehed ayuu ku leeyahay macnaha Wirtschaftswunder waxa si lama filaan ah markuu dhaqaalaha kor u kaco macnaha wuxuu ku leeyahay afartameeyadii ahayd uu ku leeyahay macnaha fidsigaan 1940 ka wada macnaha meelahaas kontameeyadii ahayd uu ku leeyahay macnaha 1950kii iyo xiligaas oo wada macnaha 1950 ilaa iyo 1999 ka camal macnaha ilaa 60 ka camal u dhaxaysa intaas 70yadii ahayd uu ku leeyahay iyo 80yadii ahayd ayuu ku leeyahay marka teeba saaxiib Jarmalka qormo ka dhacay si lama filaan ah dhaqaalaha qormo kor ugu aaday wuxuu dhacay saaxiibayaal kontonayadii 1950kii ilaa meelahaas camal ilaa 1980kii meelahaas ayaa waxa imaaja waxa dhacay Jarmalka kor sare oo dhanka dhaqaalaha ah su'aasha 104 wuxuu ku leeyahay was nannten die Menschen in Deutschland sehr lang die Stunde Null
maxay dadka Jarmalka ugu yeerayeen oo kuleeyahay micnaha muddo dheer die Stunde Null saacada oo eberka zeroda ah maxay ugu yeerayeen oo kuleeyahay micnaha wuxuu kuleeyahay micnaha damit wird die Zeit nach der Wende im Jahr 1998 bezeichnet yani waxaa markaas la magacaabo kuleeyahay Wende ama Wendezeit-ka waxaa la dhahaa xilligii 1999kii ay dadkii DDR ku noolaayeen ay sidna aysan rabin inay maamulka DDR ku noolaadaan isla markaana ay baraanbaxyo nabad ay samey jireen oo ay darbigii marka dambe meesha ku yaal ay jebinayeen micnaha xilligaas processkaas oo socday ayaa waxaa la micnaha de Wende ama de Wendezeit marka xilligaas intuu socday ayaa lagu magacaabo ayaa la dhihi jiray kuleeyahay micnaha die Stunde Null-kaas lagu magacaabo ayuu kuleeyahay micnaha b wuxuu kuleeyahay damit wurde der Beginn des Zweiten Weltkrieg bezeichnet waxa bilowga dagaalka labada adduunka ayaa dhihi jireen kuleeyahay micnaha die Stunde Null iyo c darunter versteht man das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Beginn des Wiederaufbau waxaa lagu gartaa buu kuleeyahay micnaha waxaa laga fahmaya uu kuleeyahay in dagaalka labada adduunka soo bilaabmay oo dhamaaday iyo in dib u dhis kalena oo bilaabmay yani micnaha ayaa lagu gartaa buu kuleeyahay ereyga die Stunde Null iyo ta u dambaysa saaxiibayaal damit ist die Stunde gemeint waxaa lagu saacada laga wadaa buu kuleeyahay in der die Uhr von der Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt wird maadaama saacada oo xilliga samarka ah oo winter loo bedelayo ayaa lagu magacaabo ayuu kuleeyahay marka teeba saxay su-aashana la weydiiyey saaxiibayaal oo ahayd dadka Jarmalka maxay muddo badan die Stunde Null ugu magacaabayeen waxa waaye saaxiibayaal waxaa laga fahmaa waxay tahay in saacad dagaalkii labaad oo soo gabagaboobay isla markaana oo bilaabmayo Wiederaufbau in dalka meelihii wixii burburay in dib loo dhiso inay bilaabmaan ayaa waxay muddo badan ugu magacaabi jireen die Stunde Null su-aasha 165aad wuxuu ku leeyahay wofür stand der Ausdruck Eiserner Vorhang maxay u taagan tahay ayuu ku leeyahay micnaha ereygan la yiraahdo Eiserner Vorhang waxay u taagan tahay ku leeyahay micnaha das Warschauer-Pakt gegen den Westen Warschauer-Pakt mina dad badan mar badan ma qadaysan inaan fahmin baa laga yaabaa Warschauer-Pakt Warschauer waxa waaye heshiiskii waagii hore ay Soviet Unionka ay la galayeen micnaha wadamada kaleetood si ay awoodooda dhaxbartanka iyo Ost Europe-ka ay u xoojiyaan micnaha ay safe amnigooda ay u adkeeyaan ayaa waxay soo saareen micnaha heshiis ama fartaraag oo lagu magacaabo micnaha Warschauer-Pakt marka wuxuu ka soo horjeedaa ku leeyahay micnaha ereyga baalkaas wuxuu ahaa ku leeyahay das Warschauer-Pakt dadkan oo teamkan isku tagay oo ka soo horjeeda micnaha Westenka oo qoladan bari sida Faransiiska iyo Jarmalka iyo kuwan kale korsii jiro Norddeutschland gegen Süddeutschland waxay ahaayeen ku leeyahay Norddeutschlandka waqooyiga Jarmalka iyo Süddeutschlandka Nazi Deutschland gegen die Alliierten cunsuriyiinta Jarmalka qoladii Naziga iyo Alliierten afarta wadan kale todo kale oo midoobay iyo Europas gegen die USA Europe iyo Europe oo ka soo horjeeda micnaha USA marka su-aasha la weydiiyo ahayd micnaha Ausdruck oo Eiserner Vorhang muxuu u taagan yahay wuxuu u taagan yahay waxay tahay das Warschauer-Pakt gegen den Westen su-aasha 166 wuxuu ku leeyahay im Jahr 1953 gab es in der DDR einen Aufstand an dem Langzeit in der Bundesrepublik Deutschland einen Feiertag erinnerte wuxuu ku leeyahay micnaha xilligan 1953 waxaa ka jirta ku leeyahay DDR maalin ay muddo badan mar ay dadka oo shacabka Jarmalka ay Feiertag soo xasuusanayeen maalin fasax ay soo xasuusanayeen ayaa jirta ku leeyahay micnaha van taas goorma ahayd waxay ahayd 1 May waxay ahayd 17 Juni waxay ahayd 17 Yuli waxay ahayd 9 November marka teeba saxay marka wuxuu ku leeyahay 1953 qaybta DDR goormee u ahayd muddo badan dadkan oo Bundesrepublik Deutschland ka degnaa maxay Feiertag u soo xasuusanayeen maalintay ay Feiertag ahaan ama maalin fasax ahaan u soo xasuusanayeen buu ku leeyahay maalintaasna waxaa waa saaxiibayaal 17 Juni su-aasha 167 wuxuu ku leeyahay welche deutsche Stadt hatte ein schwarz-rot-goldene Flagge mit Hammer, Zirkel und Ehrenkranz wuxuu ku leeyahay wadankee qaybtee Jarmalka qaybtee ayaa lahayd ayuu ku leeyahay calanka oo madowga calanka dirtaan jiro madowga gaduudka iyo dahabka
oo leh laakiin calaamada bruska meesha waxa lagu garaaco hama circle-ka waxa baashan oo kala taagan lalugaha kala taagan iyo Ehrenkrans waxaan oo geesahan ka baxaya micnaha calaa koox waxaa wato siyaasi xisbiyo badan calaamadooda u yahay micnaha waxaan oo geesaha ka imaanaya oo la micnaha Ehrenkrans qaybta Jarmalka ayaa wada jirta ayuu ku leeyahay waxaa wada jira uu ku leeyahay a Preußen ku yiraahdo b waxaa wada jira Bundesrepublik Deutschland ayaa haysan jira ku leeyahay DDR ayaa haysan jira ku leeyahay Deutschland Democratic Republic iyo d Drittreich ayaa isticmaali jira ku leeyahay marka teeba sax ah saashin la weydiyo eed micnaha qaybta Jarmalka ayaa calaamadan meeshan ku qoran isticmaali jirtay waxa isticmaali jiray waxay taas calaamad calanka waxay u ahayd oo DDR ayaa u ahayd qolada Berlin iyo ka kor haysan jiray ayay u ahayd ساشا زدت زياد وحكوليها in welch ساشا بقولته زياد وحكوليها in welchem Jahr wurde die Mauer in Berlin gebaut Sandke ayaa derbiga Berlin la dhisay ayuu ku leeyahay 1953 1956 1959 iyo 1961 marka jawaabtu waxay tahay derbiga Berlin waxaa la dhisay saaxiibayaal 1961 ayaa la dhisay derbiga labada Jarmal lagu kala goynay ساشا بقول زدت سغالad wuxuu ku leeyahay Wann baute die DDR die Mauer in Berlin? Si kale haddana ku weydiiyey goormee ayay DDR dhiseen ayuu ku leeyahay derbiga Berlin wuxuu ku leeyahay 1991 1963 1961 1990 oo isla jawaabtii ah derbiga DDR ayaa waxay dhiseen 1961 su-aasha sagaashanaad wuxuu ku leeyahay Was bedeutet die Abkürzung DDR? Abkürzung am wax loo soo gaabiyay DDR maxay tahay ayuu ku leeyahay a dritte deutsche Rundfunk ayaa lahaa ku leeyahay die Deutsche Republik ayaa lahaa ku leeyahay dritte Deutsche Republik Deutsche Demokratische Republik ayaa lahaa ayuu ku leeyahay ayaa loo soo gaabiyay jawaabta saxdan waxay tahay saaxiibayaal DDR waxaa loo soo gaabiyay Deutsche Demokratische Republik ayaa loo soo gaabiyay su-aasha 91 wuxuu ku leeyahay wann wurde die Mauer in Berlin für alle geöffnet goormee ayaa dadka dhan derbiga Berlin loo furay ayuu ku leeyahay waxaa loo furay 1987 waxaa loo furay 1989 1992 iyo 1995 ayaa dadka dhan loo wada furay ayuu ku leeyahay marka teebaa sax ah su-aasha ahayd goormee ayaa derbiga dadka dhan loo wada furay jawaabteeda waxaa waaye 1989 ayaa dadka dhan isku gudbaan ayaa loo ogolaaday 1962 wuxuu ku leeyahay welche heutigen deutsche Bundesland gehört früher zum Gebiet der DDR hadda maamul goboleedyada ayaa haddeertaan ka tirsanaa ayuu ku leeyahay DDR ka tirsanaa ayuu ku leeyahay waxaa ka mid ahaa maamul goboleedka Brandenburg ayaa ka tirsanaa ayuu ku leeyahay Bayern ayaa ka tirsaneed Saarland ayaa ka tirsaneed iyo Hessen marka gobolkee ayaa ka tirsanaa DDR waxaa ka tirsanaa saaxiibayaal Brandenburg ayaa ka tirsanaa DDR ساشا بقول ساشا الاتحاد wuxuu ku leeyahay von 161 bis 189 war in Berlin laga soo bilaabo 61 ilaa iyo 69 Berlin waxay ahayd ayuu ku leeyahay ohne Bürgermeister gudoomiye magaalo mahaysan uu ku leeyahay ein eigene Stadt magaalo qaas ah ay ahayd uu ku leeyahay durch eine Mauer geteilt derbi ayaa dadka loo dhexaysiiyey nur mit dem Flugzeug erreichbar flugzeug ahaan bis diyaarad ayaa dadka isku aamini jireen marka maxaa sax marka laga soo bilaabo 1961 ilaa iyo 1989 Berlin waxa u dhaxeeya derbi ayaa lagu kala qaybiyay macnaha magaalada caasimadda Jarmalka ee Berlin saasha afraad wuxuu ku leeyahay am 3. Oktober feiert man in Deutschland den Tag der Deutschen 3. Oktober Jarmalka waxaa loo dabaaldegaa uu ku leeyahay maalinta Jarmalka ee ah Einheit maalinta midowga ah Nation maalinta qaranka Bundesländer maalinta maamul goboleedyada Städte maalinta magaalada marka 3. Oktober Jarmalka waxaa loo dabaaldegaa maalinta Einheit-ka Tag der Deutschen Einheit macnaha maalinta dadka Jarmalka ay midoobeen ayaa lahaa 3. Oktober welche heutigen deutsche Bundesland gehört früher zum Gebiet der DDR marka hore hadana soo weydiiyey maamul goboleedkee ayaa maanta kamid ah uu ku leeyahay DDR-tii hore ka tirsan ayuu ku leeyahay Hessen ayaa kamid ahayd uu ku leeyahay Sachsen-Anhalt Nord Rhine-Westphalia ayaa kamid ahayd Saarland ayaa kamid ahayd marka jawaabta saxdan waxay tahay Sachsen-Anhalt ayadana way ku jirtaa Brandenburg Sachsen-Anhalt Berlin halfkeeda
ilaa iyo korkaas kale ka adeegsid ayadana way kamid tahay macnaha DDR ayay kamid tahay gobolkaas hadirtaan yiraahdo Sachsen-Anhalt. Su'aasha 196 wuxuu ku leeyahay warum nennt man die Zeit im Herbst 1989 in der DDR die Wende? maxaa loogu magacaabo ayuu ku leeyahay xilliga 1989kii qayb DDR waxaa loogu magacaabo ku leeyahay die Wende sababta loo magacaabo wuxuu ku leeyahay marka su'aasha uu ka jawaabayo wuxuu leeyahay in diese Zeit xilligan verändert sich die DDR politisch siyaasadda DDR ayaa waxay isku bedelaysaa uu ku leeyahay von einer Diktatur zur Demokratie kalitalisnimo ayay dimuqraatnimo isku bedelaysaa uu ku leeyahay von einer liberalen Marktwirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft qaab dhaqaale ayaa wuxuu isku bedelaa uu ku leeyahay qaab sozial ah von einer Monarchie zur Sozialdemokratie qayb boqortooyo ayaa qadana qaab social isku bedelaysaa uu ku leeyahay iyo von einem religiösen Staat zu einem kommunistischen Staat qayb oo diimeed ahayd waxaan isku bedelaysaa uu ku leeyahay qaab kale oo communist ah isku bedelaysaa uu ku leeyahay marka baa saxaya jawaabta saxda session video ee sababta oo xilligan 1999kii DDR die Wende loogu magac daray maxay ahayd macnaha sababta waxa waaye dictatorka ka jiray meesha ayaa dadkii maskaxdooda ay bedeleen oo banaanbixi wixii oo nabad ay sameey jireen si ay maadaamaysan aqbalaynin maamulka DDR waxayna qaateen dimuqraati ayayna qaateen dictator ayay ka tageen dimuqraati ayayna qaateen waxayna ahayd 1989kii waa markii dadka shacabka Jarmalka la isku fasaxay inay isku gudbaan 1997 wuxuu ku leeyahay welche heutigen deutschen Bundesland gehört früher zum Gebiet der DDR haddana marka la tusaasha ku soo celiyay gobolkii ayaa kamid ah uu ku leeyahay qolada DDR kamid ah uu ku leeyahay waagi hore Thüringen kamid ah uu ku leeyahay Hessen Bayern iyo Bremen jawaabtan waxay tahay saaxiibayaal Thüringen ay ku jirto macnaha ayadana ku jirtaa waxay kamid tahay Sachsen-Anhalt iyo waxay ku jirtaa Brandenburg mar ayada ku saxiixaysa ka bacdi Thüringen ayaa soo saxiixaysa waana qaybta oo DDR ka talin jirta su'aasha 189 wuxuu ku leeyahay welche heutigen deutsche Bundesland gehört früher zum Gebiet der DDR haddana marka ay ku soo celiyay yaa kaloo kamid ah uu ku leeyahay DDR maamul goboleedkii ayaa haddatan jiro oo kamid ahaa DDR Bayern Niedersachsen Sachsen iyo Baden-Württemberg jawaabtan waxay tahay waxa waaye Sachsen ayadan soo kaleetood way ku jirtaa oo qolooyinka DDR-ta kamid ahaa ayay ka tirsan tahay su'aasha 199 wuxuu ku leeyahay mit der Abkürzung Stasi meint man in der DDR Stasi ereygan soo gaabsay Stasi waxaa loola dan lahaa uu ku leeyahay xilliga DDR das Parlament ayaa loola dan lahaa uu ku leeyahay das Ministerium für Staatssicherheit ayaa loola dan lahaa uu ku leeyahay ein regierende Partei oo ayaa loola dan lahaa uu ku leeyahay iyo das Ministerium für Volksbildung ayaa loogu dan lahaa uu ku leeyahay marka ereygan Stasi waxaa loo soo gaabiyey waagii DDR Ministerium für Staatssicherheit wasaaradda oo ammaanka magaalada ayaa jirta macnaha wasaaradda yiraahdo taas ayaa loogu magac daray uu ku leeyahay Stasi saasha 200 isla markaan aan su'aasha ugu dambayso qaybteena maanta wuxuu ku leeyahay welches heutigen deutsche Bundesland gehört früher zum Gebiet der DDR sidoo markaa haddana soo weydiiyey maamul goboleedkii ayaa kamid ah uu ku leeyahay macnaha DDR tuwaagaas kamid ahayd wuxuu ku leeyahay Hessen ayaa kamid ahayd Schleswig-Holstein ayaa kamid ahayd Mecklenburg-Vorpommern ayaa kamid ahayd Saarland ayaa kamid ahayd marka taaba saxay su'aasha saxdan waxay tahay Mecklenburg-Vorpommern ayadana way ku jirtaa oo qoladii waagii hore oo DDR la isku dhigi jiray ay kamid tahay oo dhammaan qaybtan kor wixii naga jira dhan north wixii naga jira dhan inta badan waxa way DDR ay wada ahaayeen oo team isku wada xiran ayay wada ahaayeen inta ku soo gabagabeyna saaxiibayaal qaybtani maanta haddii aad wax su'aal qabto ila soo xiriir kartaa haddii aad wax qalad ku aragto soo kale ta kala bashkina ila soo xiriirtid inta kulanka xiis badan kulmi doono waa anigu qaliiji ah fi amaan Allah